Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaashan qiimaha iyo qaayaha badan oo idin salaamo meel kasta aad dunida dacaladeeda ka joogtiin. Waa Shushu Xaaji Channel. Maanta waxaan idiin wadnaa insha Allah kabaab maraq leh iyo bariis cad. Insha Allah waxaa ka sameyn doonaa waa kana hilib shiidan iyo hilib geel ah. Xawaaji halkaas noogu jiro. Waa hal qaando xawaash, laba qaando maraq digaag iyo xawaaji kaari iyo huruud waaye. Basashaasna waa soo jarjari doona insha Allah. Basasha waa soo jarjaray waa ku shubay. Sidoo kale waxaan ku shubay xawaajiyaashii insha Allah. Basashan waxaa u soo jarjaray si oo yar-yariis ah sida sambuuska oo kale. Insha Allah waxaa ku daraa laba qaando saliid ah. Insha Allah intaana isdhexgelin doonaa si fiican. Kaamirada boobsiisa ku xiray insha Allah, laakiin waa inaan si fiican isku dhexgelisaa insha Allah. Hadana sidoo kale waa kuskuuseena insha Allah. Si fiican loo kuskuuso. Basasha oo kale hada si fiican waaweyn kaaga jarjaranta oo kale hada kuskuuska ka halaaba. Marka insha Allah ku dadaal inaad si yar-yariis u jarjartid gacantana marka aad qasiisid aad ku kala bixisid insha Allah. Haddii goos ka noqoto haduu hilibka meeshaas uu ka bixi oo ka daadana insha Allah. Waa kana insha Allah saan ku soo wadi doona ku soo dhameyn doona insha Allah. Waxaa imaan taawadii meeysi diyaarsaneed. Waxaan ku ridinaynaa hilibkeen insha Allah aan soo ku kuusne. Xawaajiyaashii aan soo marinay insha Allah. Waxaa ugu daraa hal qaando saliid ah waaye si oo hoos madow hilibka oo noogu noqonin. Sidaas darteed marka waxaan rabnaa in dhinac kasta u gadino oo ka gaduudin insha Allah. Marka hadan dhinac kale u gadinayna dhinac kale u gadinayna ilaa inta dhinacyada dhan ay same ka noqdaan. Marka dhinac kasta u gadi insha Allah. insha Allah waxaan moodaa wax yar oo hareen gidgidi ilaa dhinac kasta oo hilibka ceeriinku ka baaba'o midabkiisa. Hadana waa kana insha Allah waa ka bixinaynaa diyaar oo noo yahay hilibkeena dhinac kasta oo ku gaduuto waa kaya sida u jeedin insha Allah. Hadana kana maqliga dabka saarte digsigi marka hilibkeena ku ridinaynaa maxaa yeelay saas ma ku karsamin hilibka oo ceeriin u ahaa ceeriin waaye. Marka hadda kadib wixii ku dari rabno insha Allah kaas waxaan ugu jiri yaanyo miroole. Marka waxaan rabnaa inaan shiidno mishiinka qaylidiisa neega xiray insha Allah. Markana waa soo miiray waa ku shubeena. Sidoo kale waxaan ku dari doonaa baradho. Waxaan rabaa seeka marka uu noqdo inuu ku baabi'iyo rabaa insha Allah ku kariyo ku baaba'ado. Sidoo kale waxaan ku dareynaa shiishidka aan ku daray waa haaf ka soo isticmaalay haaf kale aad ku dhameeyay insha Allah. Intaan isku qaseena marka hilibka tastigiisa wixii uu dhameystiran yahay wax oo tast dambe oo cusub iyo waxaas gadaal ugu dari doono ma jirto. Qaandada marka gelinaysan ilaali dabka medium u dhig. Hadana waa kana masha Allah saan oo noogu soo karkaray marka ilaa intuu hilibka uu kari karo qiyaasa adiga insha Allah. Masha Allah waa kana hilibkeeni asigoo diyaar ah baradhadii ku dhex milantay maraq masha Allah qurux badan noo soo baxay. Waxaan laga rabaa qaandada inaad ka ilaaliso hadii kale hilibku ka jajaba. Hadana waa kana bariiskeeni biyo bas dabka saaray. Waxaan ku dari doonaa qaando saliid ah heel iyo qarfo iyo cusbo leh wax kale kuma ku dari doono insha Allah. Intii noo soo karkareen marka bariiska ku darsanayna bariiskeena marka saas lagu karinayaa intaas waa bis
maasha allah. Waa kana waxayna noo diyaarsan bariiskeeni waa kaaya soo noogu soo baxay, hilibka sidoo kale, ansalaatada saas oo kale noogu soo baxday insha allah. waxaan rajeynaa kulanti dambo xiisa leh. waxaan isku ognahay kheyr iyo nabad. videoga xiga inta kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bye bye.